godadkan waa 16 god 8 god oo ka mid ah waa baqtiyo nasiib 8 kale waa eber waxaa eberka la mid ah haddii saacadu ay istaagto xariiqin korkeeda hadday istaagtona waa eber qofkaana loogu celin mahayo sababna garan saddex qof baan soo qabanayaa qofka koowaad waxaan la jeclahay inuu haleelo 60 senti qofka labaadna waxaan la jeclahay inuu haleelo 70 senti qofka saddexaadna waxaan la jeclahay inuu haleelo 80 senti saddexdooduba haddii mid laba ka mid ah ay hal ama saddexdooduba hal lambar isla soo wada istaagto wax iskale kii ugu horeeyay labada kalena way ka gubatay haddii ama lambarkaas wixii ka yar hadday keenaan oo haddana ay saddexdooduba ay lambarkii ka yaraa ay isla wada saarmaan kii ugu horeeyay unbaa leh waa fahanteen soo ma ahan soo dhawaad asxaabay halkan waa tijaabi nasiibkaaga kuuleysa adigoo jooga gurigaaga maxaa rajaynaysaa marka inay kusoo baxdo maxaa rajaynaysaa dhibic 8 yaa walaal dhibic 8 inay soo baxdaan rabaa 60 senti inay kusoo baxdaan rajaynaysaa ayay nasiib wacan waa ku duuraynaa meesha kusoo istaagto waa qaxmo walaalkay eber baa kusoo baxday hello assalaamu calaykum وعليكم السلام. waa tartanka wala socdaa maxaa rajaynaysaa marka inaad ku guulaysato maxaad rajaynaysaa wuxuu ilaahay calfo. insha allah nasiib waxaan ku rajaynayaa waa qaxmaha walaashay adigana waxba kuma soo bixin eber waaye saacaday kor taagan tahay maxaa rajaynaysaa inaad ku guulaysato okay waxaan ku rajaynayaa nasiib wacan nasiib wanaagsan baan ku rajaynayaa maasha allah 8 senti ay sheeg lambarkaaga hoos noogu